Soomaalidu boqolkiiba boqol ma muslimiin ba su'aashaas ayaa taagan sidaan wada ognahay dadka Soomaaliyeed waxa loo tixgeliyaa boqolkiiba boqol inay muslimiin yihiin laakiin war cusub ayaa maalmahan taagan warkaas waxa soo saartay hay'ad faafisa diinta Kiristaanka oo ka howlgasha Soomaaliya gudaheeda hay'adaasi waxa ay xafiis ku leedahay magaalada Muqdisho warbixin bay soo saartay waxa ay sheegtay dad ku dhow 200 oo kun oo qofood inay gaalaysiisay sanadkan 2023 ee tagay macquul ma kula tahay arintaas hay'adan magaceeda waxa la yiraahdaa Somali Bible Society waxa ay soo saartay sanadkan tirakoob goobaha ay dadku ka soo raaceen waa ay sheegtay waxaan isla arkaynaa goobaha ugu badan oo ay dadka ka gaalaysiisay iyo goobaha ku xiga iyo goobaha ku sii xiga ilaa ay aan gaarno goobaha ugu dambeeya waxa kamid ah Soomaaliya Ethiopia Djibouti Kenya dadka jooga ee Soomaalida ah dadkaas waa dadka ay sheegaysaa waxa ay sidoo kale sii sheegeen oo ay gudaha u sii galeen qabaa'ilada ugu badan ay sheegeen soo dhigaya waraaqda waxa ay sheegeen 197,195 qofood oo Soomaaliyeed inay diinta Kiristaanka qaateen sidaas bay sheegeen xagee ka soo kala jeedaan marka waxa la yiraahdo koonfurta waa marka laga reebo Somaliland goboladan kale waxay yiraahdeen waxaan ka gaalaysiinay 171,227 qofood ayaan ka gaalaysiinay leeyahay arintan dhageyso ma sahlana 171,000 oo qofood waxa laga yaabaa qof aad taqaana inuu ku jiro qof saaxiibka ku jiri kara qof walaalka ku jiri kara si fiican u dhageyso Soomaaliland waxay dhaheen 7,642 qofood baan ka gaalaysiinay yiraahdeen Djibouti waxay yiraahdeen 3,760 baan ka gaalaysiinay okay Soomaali galbeed waxay yiraahdeen 8,917 NFD 5,649 sidaas bay sheegeen inay dadka ka gaalaysiiyeen ay sheegeen sidoo kale waxa ay sheegeen qabaa'ilada ay dadku ka soo jeedaan dadka ay gaalaysiiyeen kala horreentooda waa qaabkan aad arkaysaan oo sidaan bay listiga u soo qoreen iyaga ayaa u soo qoray arintan wallahi markaan arkay aad iyo aad baan uga naxay hay'adan waxa ay sheegtay dadka koonfurta jooga 171,000 iyo wax ka badan inay ka gaalaysiisay waxa ku sheegaya marka sababta ay ku dhacday oo dadkan ay ugu badan yihiin hay'adan waxa ay sheegtaa in ay tahay hay'ad khayri ah oo dadka taakulaysa waxa ay tagtaa kaamamka meelaha kaamamka ay tagtaa kaamamkaas bay waxay geysaa raashin sida aad arkaysaan raashin bay dadka baahan u geysaa dad marka halka waxaan jooga baahan hadana aan ahayn dad diinta wax badan ka fahansan oo haween iyo caruur iyo dad iska waayeelo aan diinta si fiican u baran ayaa halka buuxa waana fursada ugu badan meesha ay ka heleen oo ay uga faa'iideysteen ma jirto dawladdu in ay arinta kormeer ku sameysay hay'adahan soo galaya oo dadka kaamamka ugu tagaya ee tashkiilinaya ma jirto control ay ku sameysay iyo indhayn ay ku sameysay ma jirto sida aan ka dhax arkaynana aadan cad dhexdiisa ay ku leedahay oo halka ay degan yihiin hadii aad isleedahay oo maskaxdaada ku jirto qof Soomaali ah oo ma jiro Soomaaliya jooga oo diinta Islaamka inta laga bixiyo diin kale qaadanaya ma jiro hadda isleedahay tusaale waxa kugu filan dadka social media TikTok ka dhex qayliya ee doodaha markaas la taagan ee diinta Islaamka ka baxay ayagoo magacyadiisu suubanaaye Maxamed iyo Faadimo iyo Xaliimo laha iyo Ahmed kii aad taqaanay laha magacyadu quruxda badnaa ee waalidkood u dooreen inta ka haajireen diin kala qaateen oo la baxay iyo iyo balaayo kala la bax ayad arkaysaa arintan marka waxay u baahan tahay in aad iyo aad looga digtoonaado number yar maaha waa dad aad iyo aad u fara badan waxa laga yaabaa dadkaas inuu ku jiro qof saaxiibka ah walaalka ah ama kula dhashay ama qof aad taqaan inuu ku jiro ayaa laga yaabaa dadkaasna badankood hunguri ayaa u geynaya arinta inay sameeyaan oo nolol kale oo qiyaali ayaa loo sawiray baahidan baad ka baxaysaa ha leeyri hadii la rabo wadanka laga qaadaa baa leeyri sidaas bay ku howlgashaa dadka maamulayaasha ka ah ee madaxda ka ah wadada la yaqaano agaasimaheeda xoghayaheeda iyo gudoomiyaheeda hay'adan wadada la yaqaano si aad u soo hesho dadka magacyada qaybta Facebook searching ku qor dad badan baa warbixina ka diyaariyay halka ayaad ka dhax arki doontaa arintan marka waxay u baahan tahay baaritaan xeel dheer in lagu sameeyo ee wadanka laga suuliyo fikirkooda iyo waxa ay wataan waxa ugu badan oo ay ku soo gambadaan waa inay yiraahdaan dadka ayaan wax siinayna dawladdu kulay wax aan iyada soo marin ee laboorkaasna kama soo baxdo dadkaas tabaalisan looma gudbiyo waxaan ka codsanaynaa in dawladdu waxyaabahaas ay naga xakamayso dadka Soomaaliyeed waa dad loo qadariyay inay yihiin dad boqolkiiba boqol muslimiin fadlan bulshada ka taxadar bulshada Soomaaliyeed ee muslimka qiyamkeeda yaan lagu cayaarin aqiidadeeda wax fasahaadinaya lagu soo dhaxday adinka mas'uuliyad ka saaran tahay yaan lagu soo dhaxday qof kasto ilmahaaga ka taxadar qof kasto cid aad mas'uul ka tahay ka taxadar waa la soo